بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تفسيركي جزء عما أيام كسوة جرني بشهر رمضان ugu talagalay waa darsigii afraad suuratu takwiir ama suuratu ida shamsu kuwirat ayuu ka bilaabanayaa darsigani, iyada iyo suuratu linfitaar oo ku xigta ayaan darsigan insha allahu tacaala qaadan doonaa. labadan suuradoodba waxay ka mid yihiin suuradaha aada u sifeeyey ama tilmaan iyo tafaasiil ka bixiyey qiyaamadu markay dhacayso isbedelada kownka ku dhici doona ayay wax ka tilmaameen. bal nabigeena waxaa ka sugan sal alla alay wasalam xadiidka cabdullaahi bni cumar wuxuu nebigu lehy sal alla alay wasalam man sarahu an yandura ilaa yowmi alqiyaamati kaannahu ra'ya cayn falyaqra' ida ashamsu kuwirat waida asamaau infatarat waida asamaau inshaqat. axmed iyo tirmidiyaa soo saaray, waa xadiis saxiix. wuxuu nebigu lehy sal alla alay wasalam ruuxii ay farax gelinayso, jecel way macnaha, inuu fiiriyo maalinka qiyaamada ah sidii isagoo ishiisu haysoo kale, ha akhriya buu nebigu uri sal lla alay wasalam suuraddan haddaan dul joogno ida ashamsu kuwirat, suuradda ka dambeysa ida asamaau inshaqat, iyo waxaan dhihi lahaa suuradda ka dambeysa ida asamaau infatarat, iyo suuradda kasii dambeyso suuratu linshiqaaq waida asamaau inshaqat. kulli suuradahaasi waxay sifaynayaan jaanib ka mida isbedelada imaanaya markay qiyaamadu dhacdo. waxaa kaloo ka mid yihiin suuradaha si gooniya nebiga u taaban jiray sal alla alay wasalam oo cabsida badan gelin jiray oo cirada ka soo saaray nebiga sal alla alay wasalam ayay ka mid tahay, sida cabdillaahi bni cabaas laga warinayo. abubakar baa wuxuu yihi nebigu sal alla alay wasalam wuxuu ku yihi yaa rasuula allah qad shibta, rasuulka ilah waad cirowday. markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam shayabatnii huudun waalwaaqicatu waalmursalaatu wacama yatasaa'aluun waida ashamsu kuwirat. suuradahaasaa cireeyey buu nebigu sal l cirada iga soo saaray. xadiidkana tirmidi baa soo saaray, isagana waa xadiis saxiixa weeye. marka waxay ka mid tahay suuradaha nebiga sal alla alay wasalam ciradiisa soo dedejiyey ayay suuraddani ka mid tahay. sidoo kale waxay ka mid tahay suuradaha sida aadkaa u sifaynaya qiyaamada iyo say u dhacayso iyo isbedelada kownka ku dhacaya, ama kownkan hoose ama kownka sare. waa suura makiya. marka suuratu takwiir waxaa sugan fii saxiixi muslim inuu nebigu sal alla alay wasalam salaada subax ku tukadayna way sugan tahay. waa suurad marka maki ah oo waxay soo degtay marxaladii hore nebigu sal alla alay wasalam uusan maka ka soo hijroonin ayay soo degtay. suuraddu marka waxay ku bilaabanaysaa san sheegnayba qeybaheeda hore waxay ka hadlaysaa isbedeladaas kownka ku dhacaya markay qiyaamadu timaado. muxuu ahay kadibna waxaa laga hadli doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka hadli doonaa, wuxuu ku dhaaran doonaa makhluuqaadkiisa qaar ka mid ah. shayga lagu dhaaranayo ujeedaduna iyadoo ay tahay muxuu ahay qur-aanka kariimka ah iyo sida ilaahay usoo dejiyey ayaa laga hadli doonaa. isaga iyo labadii loo soo dhiibay malakul jibriil oo la taskiyeeyo, nebi maxamed oo uu keenay oo isaguna ummadda usoo gudbay isagana la taskiyeeyo, iyo gaaladan wax ku qaadan la. allah wuxuu yihi marka tabaaraka wa tacaala ida ashamsu kuwirat, idaa goortii ashamsu qoraxdii kuwirat la duubo, laysu keeno inta la uruuriyo iyadoo dhanba la duubo sida cimaamada loo duuboo kale. yacni qiyaamadu markay timaado waxay dhaafaysa ma jiro. haqulat fi samaawaati waalardi, cid walba way ku culusta. marka qoraxdan aad arkaysaan waa la duubaya. saxiixulbukhaarigay ku sugan tahay min xadiidi abi hurayra oo nebigu uri sal alla alay wasalam ashamsu waalqamaru mukawaraani yowma alqiyaama. qoraxda iyo dayaxaba labadoodoo maalinta qiyaamada waa la duubayaa. yani inta laysu geeya dhanba laysku jabinaya, laysku uruurinaya way macna sida cumaamad la duubay oo kale, saasaa laysugu uruurinaya.
hadda qoraxdu way fidsan tahay taqriiban oo way weyn tahay laakiin maalinkaas iftiinkeeduna waa tagayaa iyadoo dhanna waa la isku ururinaya wayda goortii an-nujuumu xidigihiina inkadarat ay daataan samada xidigaheeduna way soo daadanayaan طبعا iftiinkana way waayayaan waxay la mid tahay oo kale aayada kale alla yiri waydal kawaakibu intatharat yani waa soo daadasho way meeshooday ka soo daadanayaan ayadana xidigihii oo isbedelay way wayda goortii aljibaalu buurihi suyirat la socodsiyo buurahan dhulka haya ee u diidan inuu dhulku uu liico ama dheeliyo iyagana waa la socodsiinayaa طبعا markii la socodsiyo kadibna waa la burburinaya waa la riiqaya kadibna waa la bitinaya waa la saydaya kadibna sidaas ay ku tagayaan oo ku baabaayaan wayda goortii al-ishaaru halihi toban sidka ahaa udilat la baylihiyo ama la dayaco ishaarta waxa la yiraahdaa waa jamcu shara waxa la yiraahdaa hasha geela marka ay bisha tobnaad sido oo ay riman tahay oo ilmihii ay bisha tobnaad ay gasho iyadoo riman ayaa la yiraahdaa ushara marka geelu wuxuu ku dhalaa 12 bilood hashu markay soo gaadho bisha tobnaad macnaha sidkeedii baa dhawaaday inay dhashaa dhawaatay waa xilliga xoolaha loogu jecel yahay waay xoolaha ay carabtu dhaqan jireen geela loogu jeclaa geela waa la sii kala jecel yahay neefku markuu riman yahay baa la sii jecel yahay haddana neefka markuu dhalmadiisu soo dhawaato oo uu gaadho bilaha dambe uu gaadhay ugu sii jecel yihiin xoolihii marka ay adduunkaba ugu jeclaayeen ayaa marka waxay noqonayaan cudilad waa la baylihinaya waa la dayacnina ma raacayo waa laga kala cararaya oo adduunka markii la joogo wixii nafta la isaga qaadayo lagu mitidayo loogu jeclaa yaa maalinka nina raacanaynin oo nina ilaashanaynin oo laga kala cararaya duurkaasi loo sii daynay hawlka iyo dhibaatada jirta daraadeed wayda goortii al-wuxuushu duur joogtii nafleydii duurka ku nooleydna xushirad la soo ururiyo la isu keeno la soo kulmiyo waxa weeyaan waa xayawaanaadka duur joogta ah nafleydaasi duurka ku nool baa iyagana la soo shirinaya la isu keenaya saas way macna ثم إلى ربهم يحشرون سورة الأنعام وكإلهي كشيء ولا صاء أرورنا يجنا ولا سكين مرج اللي سكينه حيوانات كاسي ولوك لقرقاضية ولوك لقصاصية لبكي أي سوق يستين بالوك لقصاصية سيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى حشي جيس كلهيد وحنو كذا ريدي جيس كلهيد مدي سيدة أهيدن جيس كلهين أي هردي وجيس كذا يدي بوجيست إلى لوك قصاص markii loo kala qisaaso ayuu marka Allah tabaaraka wa tacaala si ugu talinaya marka waxaan xayawaanaadka iyo noolaha duurka joogo dhan soo ururinaa wala soo keenay iyagana maalinka iyada hadda isuma iman karaan duurkaasi ku kala fiirsan yihiin way iscunahayaan way is-eriyanahayaan laakiin maalinka wala soo keenay meel bay isugu imaanayaan macna طيب wayda goorti al-bihaaru badihina sujirat lahuriyo badahan hadda biyaha dhanaana iyaga dad bay isu bedelayaan ama sujirad la buuxiyo badahani intay buuxsamaan bay meelaha ay biyuhu ku jiraan bay ka soo gudbayaan oo bariga u soo gudbayaan bidihii way buuxsamayaan sujirada wal bahri al masjur ama waa la hurinoo dab bay isu bedelayaan ama waxa laga wadaa waa la buuxinayaa oo buux tan dhaafa ayaa ku iimaanay wayda goorti an nufusu nafafyalki زوجت ليسكو لمانيو يعني wax way la israax raaciyo oo waxa laga wadaa naf walba cidii ay isku aqeedo iyo isku amal ahaayeen yaa la israacinaya koox baa la isugu lamaaninaya intii xumayd waa la israacin intii wanaagsanaydna waa la israacin munaafiqiintii gaaladii kuwii si madaxadka kuwii kibraaniyiinta ahaa cid walba cidii ku amal ahayd baa lagu lamaaninaya وإذا النفوس زوجت ساسا لسورها راعنية طيب وحين لم يتاي أوكله آيات الله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم صو كل مية كوي ظلمي قسمي يكوي لم يتكاهي اسكو عمل كاهيين طيب
waidaa goortii almaw'uudatu naftii la xabaal nololiyey oo iyadoo nool la aasay su'ilat la weydiiyo maxaa la weydiiyey waxaa la weydiinayaa biayi dembin dembigee sababtii ayaa qutilat loo dilay dembi kiiseeba naftan sababtiisa loo dilay iyadaa la weydiinaya almaw'uuda waxaa laga wadaa gabdhaha yaryarka ah markay dhalaan carabtu gabdhaha ay necbaayeen oo waxay yidhaahdaan dagaalna wax kama taraan bay dhihi jireen muxuu ahaayey ceebna way la yimaadaan sidaas daraaddeed bay kahan jireen marmarka qaarkoodna waxay u kahan jireen quudkooda iyo masruufkooda dhankaasay ka kahan jireen marka gabdhahay necbaayeen gabdhaha marka ninka marka gabadh loogu bishaareeyo waa ka qur-aanku sheegay oo wejigaaba madoobaanayaba markaasuu leeyahay macaradaad ku duugtaa ceeb xageed ka gashaa marka waxa weeye gabdha nacaybka meeshaasaa laga keenay soomaalida xataa qaarka gabdhaha nacab marka gabdhihii nacaybkay necbaayeen baa markay dhalato iyadoo yar oo noolba intay xabaal u qodaan bay aasayaan oo carrada ku rogi jireen marka jaraa'imtoodii bay ka mid ahay dembiyadii waaweyn ay geli jireen markii aakhare la taga marka allah tabaaraka watacaala wuxuu keenayaa gabadhii yarayd ee la aasay ee iyadoo nool la aasay markaasaa kii aasay hortiisaa lagu weydiinayaa waxaa la leeyahay naftaney maxaa laguu dilay dembigaad gashay muxuu ahaa ayada waxaa loo weydiinayaa kii dilay oo meesha taagan baa lagu xumaynayaa kuu quus qaadanaya leanna madluumaddii la dulmiyeyba haddii su-aal loo jeediyey daalimkii waa ka sii xag jiraa marka waxa weeye yani si muxuu ahay dadban baa isagii loo cabsiinaya way macnaha waida almaw'uudatu idaa goortii almaw'uudatu tii la xabaal nololiyey iyadoo nool la xabaalay oo la aasay su'ilat la weydiiyo biayi dembin dembikiisee sababtii ayaa qutilad loo dilay dembigeebaa sababtiisa loo dilay maxay gashay maxay dembi samaysay maxay ku mudatay in la aaso yani maxaad ku mudataa la leeyahay kii sameeyey baa marka meesha taagan oo macnaha wax wey loo duur xulaya ayb nabigeena sal lla lay waslam waxaa ka sugan in la weydiiyey masalada casliga kama fii saxiix muslim yani waxa weeye ninka xaaskiisa markuu u galmoonayo inuu biyaha bannaanka ku daadiyo si ayna u uuraysanin hadda qalab kalaa yimid oo uurka lagaga ilaaliyo dumarka marka arintaa in islaanta uurka laga ilaaliyo ayaa nabiga la weydiiyey sal lla lay waslam markaasaa mar nabigu wuxuu yidhi dalika alwa'du alkhafi waa xabaal nololin qarsoon buu yidhi nebigu sal lla lay wasalam waa aasid qarsoon markaasuu wuxuu yidhi wahiya ida almaw'uudatu su'ilat marka waxaa meesha ka muuqda nafta bini aadamka ah inay uur gashana in lala dagaalamo allahuma inay sabab sharciga keenta mooye inaan la ogolayn hadday uur gashana bilijmaac inaan la soo ridi karaynin allahuma xaalad khaasa oo iyadoo loo baqay wax la mida mooyaan ayib haddii kale waxay noqonaysaa ilmihii la aasay oo kale ayuu nebigu kala mid dhigay sal alla alay wasalam waidaa goortii assuxufu waraaqihii acmaasha bini aadamku ku qornaayo waa diiwaankii laga soo diyaariyey nushirad la fidiyo bimacnaa dawaawiintii iyo faylashii laga soo diyaariyey dadka ayaa la furaya o la fidinayaa kadibna gacanta looga dhiibayaa mid midigta laga siiyo iyo mid bidixda laga siiyo nushirad marka la fidiyo way oo yani waxa wey la faydo waidaa goortii assamaau samadii kushitat la diiro ama la maqaar siibo yani waxa kashtiga waxa la yidhaahdaa maqaarka ama shayga wuxuu ku dhex jiro oo laga dhex saaro marka yani waxa diiridda samadu maraaxil bay maraysaa lafteedu markay qiyaamadu dhacdo marka waxaa laga wadaa bay leeyihiin midabkeedan ayaa la diiraya kadibna midab kale kusoo baxaysaayo fakaanad wardatan kadihaan yani waxay u noqonaysaa oo kale ubax oo kale oo aad moodo sida haragga la magdiyey oo kale ayay markaa u ekaanaysaa marka waa la harag siibayaa ama waa la diiraya waa xaalad iyadana samadu ku dhacayso isbedelka ku dhacaya wey macna waidaa goortii aljaxiimu naarta jaxiimana sucirat la huriyo naartiina si hor leh
ayaa loo karkarinaya loo hurinaya waidaa goortii aljannatu jannadiina uslifat la soo dhoweeyo wa uslifat aljannatu lilmuttaqiin dadka ilaahay ka baqaa loo soo dhoweynaya jannadiina intaasi markay dhacdo calimat markaa waa ogaatay jawaabtii wataa idaayada isdaba yaalla idaa inta hadday dhacdo intaasi dhacdo heebaa taagan aaway jawaabtii calimad ogaatay markaa nafsun nafi way ogaatay maa shayga axdarad ay soo xaadirsatay nafi waxay samaysay iyo waxay keensatay markaa gacantay ku haysaa ilaan marar fara badan aadamuhu wuxuu sameeyey markaa uu sameeyey wax yar hadduu ka soo wareego waa halmaamayba marka wixii aada halmaantay iyo waxaad la timid isagoo qoran oo wakhtigiisii iyo saacadihiisii iyo sidaad u samaysay kulli wada diyaara naf walba waa ogaatay way hortaallaa marka sidaas wey macnaha meelo fara badan baa qur-aanku macnaha ku tilmaamay yani markaasi xaqaa'iq fara badan baa ruuxa la hor keenaya oo wuxuu sameeyey oo dhan macnaha tan suurad soo socdana waxayna dhihi doontaa naftu waxay hormartay waxay dambaysiisatayba waa la hor keenaya macnaha falaa uqsimu bilkhunnas marka isbedeladaasi koonkay ku dhacayaan qoraxdii samadii dayxii daruurihii makhluuqaadka koroo dhan isbedel baa ku dhacaya dhulkii iyo iyadana makhluuqaadkii hoosta joogayna iyagana isbedel baa ku dhacaya waxaasoo dhan isbedelkaa imaanaya waa xaqaa'iq qur-aanka inooga warramay wey calimat way ogaatay nafsu nafi markaa naf kasta waay maa axdarad waxay soo xaadirsatay ama ay shaqaysatoy samaysay markaa way ogaatay wey macnaha falaa uqsimu bilkhunnasi aljawaari alkunnasi walleyli idaa cascasa waasubxi idaa tanafas inahu laqowlu rasuulin kariim ilaahay wuxuu ku dhaaran qur-aankan iyo siduu ku yimid iyo yaa keenay iyo siduu inugu soo gaadhay ilaahay baa ka hadlaya tabaaraka wa tacala wuu dhaaranaya marka dhaar baa laga hormarinaya falaa uqsimu waan dhaaran buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala bilkhunnasi baan ku dhaaranayaa xidigihii libdhayey aljawaari ee soconayey alkunnasi ee godgelayey dhacayey walleyli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii cascasa uu daba jeediyo yacni uu sii dhammaanayo oo sii socdo wasubxi baan ku dhaartay idaa goortii tanafasa uu neefsado oo soo iftiimo iftiinkiisuu soo baxo oo uu soo neefsado intaasaan ku dhaartay innahu isagu waa qur'aankii innahu qur'aanku laqowlu rasuulin rasuul hadalkii wey rasuulkaasoo kariimin wanaagsan oo qiime iyo maamuus mudan bahiyulmandar abuurka ilaahay suu u abuuray qurux badan yahay rasuulkaasoo dii quwatin awood u saaxiiba yani quwat اlcilmi wاlxifdi wاlkhalqi waaye abuurkiisa iyo cilmigiisa iyo xifdigiisuba ku xoog badan waaye dii quwatin awood u saaxiiba waxay la mid tahay callamahu shadiid اlquwa rasuulkaasoo cinda dilcarshi allaha carshiga uu saaxiibka agtiisa ahaaday ilahay agtiisa ka dhow waay lanna ilahay baa carshiga ka sarreeya rasuulkana ilaahay buu ka agdhow yahay rasuulkaasoo makiinin la darajeeyey duu makaana waay yani darajo u saaxiiba oo qiimo iyo sharaf badan u saaxiiba rasuulkaasoo mutaacin la ateecay ama halkaa lagu ateeco xaggee kor waay meeshaa sare ayaa lagaga amar qaataa oo lagaga dambeeyaa oo warkiisa la yeelaa oo malaa'igta kale ayaa ku adeecda amarkiisaa la yeelaa waay rasuulkaasoo amiinin aamin yani la aaminay oo ilaahay agtiisa mid ilaahay hadalkiisa uu ku aaminay fariintiisa ku aaminay asraar lagu aaminay wey ayb wamaa saaxibukum bimajnuun intaa waxaa lagaga soo hadlay qur-aankan kariimka ah yaa ilaahay ka keenay yuu ilaahay u soo dhiibay ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa si uu xaqiiqadaa u muujiyo kuwa qur-aanka ka shakisanna yani wax weeyaan laysku dayo in la shaki bixiyo ilaahay waa dhaartay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa daruuraha waxaan u jeedaa xidigaha xidiguhu 3 marxalay leeyihin marxalad waa marxalad ay qarsoon yihiin ay soo baxayaan
oo dhanka bari ay ka soo baxayaan waa khunnas marka laana khanaska waxa la yiraahdaa shay muuqday oo ka qarsoomay baa la yiraahdaa saas daradeed baa shaytaanka waxa loo yiri khannaas loo yiri khannaas waxa loo yiri markuu adoonku ilaahay xuso uu dhuumanaya waa gabanaya waa tagaya marka xidiguhu marka hore soo baxayaan waxay ku soo baxayaan qarsoodi iyagoo qarsoonaa bay soo baxayaan markay soo baxaana waa jawaari oo way soconayaan korkeeniya samaday soconayaan aljawaari way markaa alkunnasina waxa laga wadaa waa markay god galaan oo ay inaga qarsoomaanoo inagoo arkaynay ay muxuu ahay libdhaan ayaa la yiraahdaa marka saddexdii marxalayda ila xidiguhu laay maray soo noqonayaan oo ay khunnas yihiin rawaajic kuwa soo noqonaya ama kuwa maxay qarsoon oo soo baxaya iyo maray socdaan iyo maray inaga qarsoomeen oo dhaceen saddexdaasba way leeyihiin sifoodkoodu ilaahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala mar labaad wuxuu ku dhaartay habeenkii idaa cascasa kelimada cascasa la yiraahdo daba jeedinna waa la yiraahdaa soo qaabilidna waa la yiraahdaa waa kalimatul adad baa la yiraahdaa laba macno iska soo horjeeda labadaba loo isticmaalaa laakiin halkan way isku khilaafeen sida fiicanna wax way in la yiraahdo idaa cascasa idaa adbara markuu habeenku daba jeediyo oo uu sii socdo waa waxay la mid tahay marka aayadda kale alla yidhi wal layli id adbara was subhi idaa asfar habeenku markuu daba jeediyaan ku dhaartay waaguna soo iftiimo tanoo kale la mid tahay marka sidaas way macnaha was subhi idaa tanafaska waxa la yiraahdaa kana waxaad moodaa inuu cabursanaa oo hal mar neefsaday iftiinkii maalinta macnaha wuxuu u muuqdaa sidii wax soo neefsaday oo kale marka subaxda neefsatay iftiinkeedu soo baxay iyo habeenkii oo daba jeediyo sii socdo mugdigiisii sii socda ayaan ku dhaartay buu rabbi tabaaraka wa tacaala marka iyada lafteedu waa isbedel cajiib waa makhluuqaad cajiiba waay markaad u fiirsato yani xidigahan dariiqooda ku socda ee mar xagga ka soo baxaya ee soconaya ee haddana qarsoomaya ee haddana majrahoodii iyo tubtii ilaahay ugu talagalaya falagooda ku socda waa cajaa'ib habeenkan sii socda ee sii daba jeediyey iyo iftiinkan xagga naga soo galay daba guuraya madowgiioo sii socda mugdigii iyo iftiinkiioo daba socda xilligaa ay isbedelayaan iyadana waxa weeye waa xaalad cajiib ah oo ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa muujinaysa waay arrimahaasuu ilahay ku dhaartay tabaaraka wa tacaala arrinta lagu dhaaranaya waxa weeye inuu yahay qur'aankani rasuul sharaf leh hadalkii waay rasuulka hadda halkan laga hadlayo ee sifaadka qiimaha badan la siiyay ilaahay taskiyay saa u amaanay waa malakul jibriil quraanku waa hadalkii jibriil baa la yiri marka leeto waxa la yiri quraankan waa hadalkii nabi maxamed innahu laqawlu rasuulin kariimin wama huwa biqawli shaa'irin qalilan ma tu'minuun markaana nabiga loo tiiriyay waa hadalkii rasuulkii bani aadamka ah markaas halkanna waa rasuulkii malaga ahaa labadaba waa laba rasuul hadalkan quraankana labadoodaba waa loo tiiriyay maxaa loogu tiiriyay marna quraanka ilaahay isaga isu tiiriyo waa hadalkaygii buu yiri marka say soo waafaqaysaa waxay soo waafaqaysaa quraanku waa hadalka ilaahay rasmi ahaan waa sida jibriil waxa loogu tiiriyay laana waa gaarsiiyay nabi maxamedna waxa loogu tiirsiyay laana waa gaarsiiyay jibriil nabi maxamed soo gaarsiiyay nabi maxamedna khalqiga adoomadu soo gaarsiiyay marka hadalka aad soo qaaday oo adigu dadka soo gaarsiisay adiga waa lagu tiirin karaa xagee dhankee inaad muballiq tahay gaarsiiye dhankeed ama quraanka asalkiisa yani wax weey waa hadal ilaahay tabaaraka wa tacaala saas weey fala uqsimu wa daaranaya marka malakul jibriil baa aad loo amaanay oo ilaahay baa aad u taskiyay yani sifaad aad u cajab badan buu ilaahay siiyay tabaaraka wa tacaala fala uqsimu wa daaranaya bil khunnasi xidigihi yani soo noqonay ama xidigihi libdhayay oo iyagoo libirsan oo qarsoon markaasi ku soo noqonayay meeshoodii oo soo baxay ayaan ku dhaartay aljawaari ee soconayay habeenkii alkunnasi ee hadana yani godgalayay kunnaska waa meesha uu baryo ogaadhan waa loo isticmaalay meesha ay baridiyo yani meesha xiradeeda markay gasho ayaa la yiraahdaa marka kunnasku waa markay dhacaan oo inaga qarsoomaan wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa goortii cascasa uu daba jeediyo wasubhi subaxdii baan ku dhaartay idaa goortii tanafasa uu soo neefsado oo soo iftiimo
إنه إسقوا قرآن كلا قول رسول هذا الكيوي رسول كاسو كريم وناكسن أو معناها أبور كيسة محو هاي دغن كيسة يسوى الباء وناكسن وشرف له رسول كاسو ذي قوة أود صاحبه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى سورة النجم إلهي باكسبه تبارك وتعالى نبي محمد إسقى قرآن كبرأوك كان وقلبي جيسو كسو دتشيي مركو إلهي كسو قاضي كذب تبارك وتعالى علمه شديد القوى يعني مد حوجسي أودي صدرنته ذو مرة أو أذكوه طيب عند ذي العرش رسول كاسو الله عرشك أصاحبك أكتيس هذا ومقرب إلهي أكتيس أيا لقده يعني ملائكتك لو كسي توا وملقة إلهي تبارك وتعالى وملائكته أنت ذاك كسو دو يستوى عرشك أكتيس ويهدي لي بمعنى إلهي عرشه وكسر ريا وكأقدويها مرك مكين الرسول كاسو درجة صاحبه ذو مكانة شرف هي درجة يسرين وصاحبه مطاع الله أطيعي ثم هل كالو أطيعي السماوات كر هل كاس لقاها الله أيا لقاها أمر قاتها ملائكتك له أيا كأمر قادته ووركيسا ليلا لما خلاف طيب أمين أولا آميني رسول كاسو لا آميني وربي جيبا آميني وأمان ماشي وقدم بيسي أيو إلهي أماني تبارك وتعالى أو تسكيي ملك الجبريل مركي ملك الجبريل أمانتي سلقا صوبحا مركي النبي محمد لوي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم صاحبكين موسى نهاني بمجنون مدوالا ولقد رآه صاحب كاسي وو أركيه جبريل بالأفق جهادي بوكو أركي المبين إعاديت وما هو موسى نهاني صاحب كاسي على الغيب وحي كركيسة بضنين كب خيل موسى نهاني وما هو موسى نهاني وحي يغيبك بقول شيطان هذا الكيماء أهاني رجيم أو لإريي وإلهي نحريست لغيري فأين حقيبة تذهبون آذي سانمرك حقيبة عقل جنو آذي إن هو ما هو موسى نهاني القرآن كني إلا ذكر ونمويه للعالمين أونك اللوانين يو وانا يوحشاق عقل علي المخلوقات كله عقل علي واون انت طيب لمن عد أيو وانا وياه عالم كيف الله وضع الشيء كدي من قارب على سي الشيء لمن عد وانا وياه شاء الضونا ومنكم إذن كم إذا أن يستقيم إنو توصناده روحي خير دونا وإنو توصناده دونية ودونية إنو محن حقاقه كاسو قرآن كوانا وياه ساقا انتفاع سنة يوان وما تشاءون دوني ميسان إن أدمحوا أهاي توستان أو هقاكتان دوني ميسان إلا أن يشاء الله إنه الله دونا مويه عليه رب العالمين أونك أورنا ربك أوها إسكالها مامولي أتليني مركا انت إن النبي صلى الله عليه وسلم أمانو تهي لأن قالوا مركي وحيقى دينتا أي كوكا عن سيديين النبي ليمد وحيقى وحي اسكو داين إن السمعة دا كدلان markaas waxay yiraahdeen wuu waalan Soomaalida arka soo dhaqmay waa waalan waa majnuun ilaahay marka wuxuu yiri wama saahibukum bimajnuun saahiib waxa iyaga loogu tiiriyay bimaana ayagu ka dhashay waa mid labaad waa bini aadan sidooda kula bini aadan u yahay wama saahibukum bimajnuun rasuulka la idin soo diray saahiibkiina ma ahaanin mid waalan ma sidee buu uga qaatay malakul jibriil wax uga qaatay su'aal isweydiin la marka sida xadiiska nabiga ku soo sallallahu alayhi wasallam xadiiska Aisha qeyrkiiba malakul jibriil markuu nabiga waxyiga u keenayo siyaabo kala gedisan buu ugu iimaan jiray laakiin laba goor ayuu suuradii ilaahay malakul jibriil ku abuuray oo dhameystiran buu nabigu ku arkay sallallahu alayhi wasallam mar waxay ahayd Batha magaalada Makka meel kamid ah ayay ahayd oo isagu nabigu jooga sallallahu alayhi wasallam ayuu dhanka bari ka soo qaabilay isaga oo 600 oo garbab malakul jibriil leey suurada ilaahay ku abuuraya marka uu arkay طيب وانا marka suuratu najm lagaga waramayo allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuq al a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna fa awha ila 'abdihi ma awha xamida iyadawa dhulka isagoo joogo arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam واتن هلكن لغا ورميو ولقد رآه وو أركي محمد رأى محمد وو أركي هو جبريل بالأفق جهادي بوكو أركي المبين إعادي جهة عد بوكو أركيو
asagoo sidii ilaahay uu abuuray buu u yimid oo markaasuu waxyiga u sheegay waa midda xaaladaas waay mar kalena wuu arkayoo habeenkii nabiga la dheelmay sallallahu alayhi wasallam 7 samo korkooda loo sii qaaday jibriil halkaasuu ku arkay isaga oo 600 oo garbab loo sidii ilaahay u abuuray halkaana waa ku arkay iyadana suuratu najm waa lagu sheegayo walaqad ra'aahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha 7 samo marka la dhaafo geedka makhluuqaadku ayna dhaafi karin halkaas markuu joogana markaluu nabigu sallallahu alayhi wasallam si buuxda u arkay malakul jibriil sidaas way macna hadiiska nabiga saa u sharxay sallallahu alayhi wasallam walaqad ra'aahu haqiiqi uu arkay bil ufuq jihadi buu ku arkay al mubini ee cadayd wama huwa muusan ahanin muhammad ala al ghayb wahyiga korkiisa ghaybkan hada waxa laga wadaa wahyiga quraanka bidaniinin oo daad ah muusan ahanin mid ku bakhayla dadka kagama bakhayle uu baahiya deeqsi buu ku yahay وما هو موسى أهان القرآنك بقول شيطان هذا الكيما أهان الرجيم أو الإريي إنهم عن السمع لمعزولون إن الشياطين تو قرآن كان لي مادان اسكبر دافع مقل كيسيبا كعرام مركا هذا الشيطان معه صادكو شيكتين معه فأين حقيبة مركا تذهبون آديسانو عقل جينية قرشدينية قرات كينا حقيد آديسان محاد بيني نيسان سيدكو بيني نيسان وحصا وعد إن هو ما هو موسى أهان إلا ذكر وانمو للعالمين إلهي وحوسو دجي أونك إن لوانيو آدمها إن لوانيو جنك إن لوانيو إن لو عقل عليو إن لو شيء مصلحة ضوض ورهل كان أدنتو إذن كنشرتا ورهل كان هل كان لاحظة ووانا إي عقل عليو واحد لمن عدب أويها يا انتفاع سنة وانا دا قود عالمك وحا انتفاع سنة روحي خير دونا روحي وناك رادينية لمن عدب وانا وياه شاء دون ومنكم إذن كمذا أن يستقيم إنه توصناده طيب هذا وحال الشيء دوني الدين كلية إذن كيناد إيمانك يطاعدي حقي خير كربتان كلية كما حدناه هذا وإنه إله إذن لدونه وما تشاءون دوني ميسان إلا أن يشاء الله إنه إله إذن لدونه مويه اللي رب العالمين أونك ربي جيساها يعني الروح مركو إيمانك خير كقادنا وإنه يستاهله inuu istaahilana ilaahi baa og allah marka wuxuu u qorayaa adoonkani waa istaahila iimaanku buu siinaya iyo khayrka iyo taacada macna wama kana linafsin an tu'mina illa biidnillahi wa adoonka doonidiisu waxay ku xidhan tahay doonida alle laba mas'ala la sugay adoonkii waxa loo sugay inuu doonid iyo khiyaar leeyahay iraada iyo mashii'a inuu leeyahay liman sha'a minkum bali hadana waxa la yiri doonida adoonka iyo mashii'adiisu ta ilaahi bay daba taalaa وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين مذهب أهل السنة سيدا سؤال أظن كمشيئتي سيدوني دي سوت إلهي كمان مدح بنانا سيدا سويان طيب إذن كإلهي بيكون حرنت مركا هدو إلهي وحيد للربون بالقاضي يساوي حق سكستو أعديها هدان إلهي وأظن كان للربين أو إلهي السنين وجود دقيقين مهل يوي معنا سيدا سويان أنت سي سورة تكوير بينك قصة بحني وحنو هل كان كجلينا سورة الانفطار أيضا سيدا القرآن غيرني ونبهني وأحياني غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ogeysiis waxa loogu bushaarinayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogaan in ay madrasada ahlul quraan online ay qaadanayso 2 fasal ka koobaad oo ah fasal ibtidaa'i ah oo bilow ah kaasoo dadka quraanka lagu xifdisiinayo laguna saxaayo laguna laqimayo الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم iyo iyadoo loo laqimayo quraanka kariimka lana xifdisiinayo laguna barbaarinayo tajwiidka اهدنا الصراط المستقيم المستقيم
ثم لترونها هنها دين ثم لترونها ونها ثم لترونها عين اليقين ونها هذا كرب هو هدين هنها هدين ونها 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 fasalka labaad oo ah fasal dhexdhexaad ilaa dhammaad kaasood ka helaysid muraajaco iyo subcin iyo cod qurxin الله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما la xidhiidhaya adreeska iyo telefoonnada shaashada kaaga muuqda